السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري وحنوها بريانيا ونودو عينينا أرديدا ما أنت قرين شبيريسا فراها بدن كون يستيتن استيدا وحين بوادينينا واردين تيكو صوت عبتي جامعة عمود ودوبيه هيدا بوركا ودي ترستقها iyo macallimiintooda halkaa soo gaarsiiyeyna waa bogaadinaynaa oo waa u mahadnaqaynaa. waxaa inoo guula in qaran ahaan maanta ay inoo soo baxeen 1,088 degree holderisa ama jaamiciyiina oo culum kala duwan baratay oo ummadda Somaliland uga faa'iideyn doonta dhinac walbana. ilaahay baynu ku mahadinaynaa, dadka tuucana waa mahadnaqaynaa. habbaryada iyo mahadnaq kadib waxay la tahay intii hore intay dardaaran iyo hoogatus iyo dhiirigelin iyo ducabaydii yidhaahdeen ayaa anna igu eg tahay oo intii hore intii ay tiri baan ku kalsoonahay oo raacinaya. dhinac walba waa laga hadlay, qodobo badan baa la sheegay, marka 2-3 erey gaagaaban baan odhanayaa. taariikhda jaamacadda waa la sheegay, tacliinta iyo awoodda ay leedahay iyo siday u shaqaysana waa la sheegay. qodobadii halkan laga sheegay maanta waxaan ku darayaa, maanta waxaynu fadhinaa xaflad, 2 xafladood oo waaweyn iyo 2 qalinjabideed oo waaweyn. waa koowa waxaynu marka hore u dabaaldegaynaa aynu soo dhoweynaynaa ardayda 1,888 ah oo xafladda loo qabtay. waxaa ku lamaan xaflad taa ka weyn oo guul Somaliland oo dhan soo hooyatay oo geeska Afrika inta lagu arkay ay yar tahay ama Afrika badankeedaba. waxa maanta guul weyna oo shacbiga Somaliland meel jooga gaaray oo idinkana mustaqbalkiina aad ku higsan doontaan oo arkaysaan Somaliland oo loo dardaaro wariyo oo la yiraahdo lama ictiraafan, oo la yiraahdo waa dal yar oo faqiir ah, oo la yiraahdo waa dal rabshad badan oo hada jeer qabqabsada. waxaan doonayaa inaan xusuusiyo guusha la gaaray qof waliba qayb ku lahaa, qof waliba qayb ku lahaa. waxaan arrintaa u sheegayaa, aan doonayaa inaan tusaaleeyo. dad badan baa u qaata siyaasadda meel colaad iyo balaay taalo, ama mucaaradka iyo muxaafidku inay yihiin dad daahoodka oo aan wada shaqayn. 2 tusaale oo madaxweyne Daahriyaalo iyo Maxamed Yuusuf Asiir madaxweyne iyo ku-xigeenka iyo aniga Siirayi oo mucaaradna dhex maray oo mar walba dhacdaan idin sheegaya dhalinyaradiinu iyo tacliinta. mar waxay ahayd markii aan isku khilaafsanayn doorashooyinkii wax oo abaabul u galayay kulmiye oo hal mudaharaad oo hal boqoray ayaa waxa telefoon igu soo dhuftay Cawil oo ahaa wasiirkii maaliyadda iyo saaxiibkii koowaad Daahriyaalo kale. wuxuu ugu yiri walaahi Brita waxa soo dhacay dalka khatar ku jiray, hal ma heli karaysa ma qaban aanu Daahriyaalo waan qaban karaya, adigu Siiraayo ma qaban kartaado labadooda meel gaar ah ma isku geynaa ma wada hadashina. ma oran alla soo tashan Siiraayo ma arka baragoon waxaan ku waan soo qaban karaya saacadda meesha hadii qabato. isna Daahriyaalo oo malaha dee soo wada hadleen awoodda uu ku qabay. waxa ka bilaabmay halkaa inaanu Cawil habeenkiisu tagno isla qaadana si la isugu iman doono, cid walba kale hadaasho. waxay ku dambaysay in aanu isugu nimaadno qasriga madaxtooyada oo Daahriyaalo joogo oo aan 12 sano aanan gelin inaanu isugu nimaadno oo arrintii lagu xalliyo ayaa ka warahay. 2 Daahriyaalo codkii baa la tiriyay, labadiisii ugu dhawaa ee campaign la taliyaasha u ahaa labadiiba BBC idaacada ka deeran yeelaynin natiijada soo baxaysa. waa labadii ugu adkaa oo miidiyaha idaacadaha waaweyn ee caalamka yidhi ma ogolin, waxaa la wadaana waa khalad. markii natiijada lagu dhawaaqay
daahir yaale inta soo fariistay waan ogolaanayaa nabadda dalka wax walba iga weyn waana taariikh sacab weyn ha loogu tumaarintaa intaa waxaanu sheegayaa waxaan daba socdaa professor Saleebaan oon in badan isaga iyo gudoomiyaha jaamacadda ka wada hadallo oon in badan halkan ka sheegay meel kale laga sheegay weli waxaan tabayaa inuu isku diidanahay oo mar walba ka warwareegaan waar jaamacaduhu sayniska way soo saareen injineeradiina way soo saareen caafimaadkiina way keeneen beerihiina way keeneen businesska lacagtiina waa la keenay dalku wuxuu ka socon laayay waa hogaaminta jaamacaduhuna hogaamintii way ka warwareegayaan waayo naanis baa loo bixiyay xol siyaasadda markaan siyaasadda waxay noqotay wax laga cararo oo taabiya jaamacadda ayay soo gelin anigu siyaasadda ma galo baa mishtar baan ahay anigu waa baashaha ikan dhakhtar baan ahay haddana nin waliba intaa siyaasad buu ka hadlaya gabadh waliba oo waa lagu jira lugtu ma lagu jira marka waxaan leeyahay jaamacadda Camuud jaamacadaha ugu weyn oo ugu magac weyn oo ugu waaya aragsan waa in laga helaa meel lagu qabtaa dibeedyada iyo cilmi baarista researchka siyaasadda oo dalka dhaqaalihiisa si loo hagaajiyaa dawlad wanaag sida loo helaa dadka si la isu afgarasiyaa doorashooyinkan muranka badan ay nagu soo noqdo marba sida xal loogu helaa jaamacadu waa inay taa ka sameeyaan researcho iyo aqoon-yahano oo ninka xisbi hogaaminaya ama dawladda haya uu gacan helaa gacan ra'yigii dadka la ururiyo la shiilay waa inuu helaa meel uu kala soo baxo dhakhtarku haddii aanu haysan shaybaar uu ku noqdo dawada waa caalamku muxuu ka yidhi oonu kaari fargelin dawo kuma siinayo dhakhtar weyne noqon maayo injineerku waa la mid haddii la yidhi qofka kaasoo dalka hogaami mayorka dalka hogaami baarlamaanka dalka hogaami oo aanu weligii hawshaa ka shaqayn meel uu noqdana aanu haynin jaamacad walaaq u diyaarsan aanu haynin oo dhan taasaa dhacay taa ka yeel dee hore loo socon maayo marka waxaan leeyahay jaamacadu waa inay sameeyaan facultigii leadershipka ama political science dheh maxaa siyaasadda looga baqaya waqtigaa lagula jiraaye waa inay qabtaan doodo oo iyagoo hogaamiyaan waa inay muranada dhaca iyo xalkooda keenaan ilaa iminka muranka dhacaa maa kii laba reer migis qabsanayeen markaa jaamacadaha waxaan leeyahay taa la wado oo Camuudda waxaan ka codsanayaa Dr. Maxamed Muusow intii hore taa war hayno naga qabanay in la furo doodaha iyo researchka iyo faculty siyaasadda intaas ay noo dhiman haddii kala dalka hore u socon maayo macallin Saleebaan dee wuu ritaar gareeyay horta isagu 54 sano shaqadan hayay buuri horta 54 kaaba waan su'aal joognay intaasi waa kaftanka in badan baa fadhiidana wax kala hadlayay waana taariikh caadi oo iska dhacda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaalaha badan ee soo barateen ereyada ugu dhaadheer waxa la yiraahdaa inspiration dhiirigelin aragti vision role model bayday waxaa soo magaciisu geey maanta haddaa tii jaamacadda Camuud waxaad nasiib u hesheen iyadoo baragtikada oo meel loo doonay ayaan haydisi haddaba waxaa la hadlayaa gadaal dhaladka Camuud baa la hadlayaa ee odaguna aad u jecel yahay ayaan aad wax ugu sheegaya maxaa hesheen waxaa hesheen Camuud oo shantii Soomaaliland madaxweynaha ka noqday 3 ay Camuud ka soo baxeen oo mid walba raadkiisa ahaysa waxaa hesheen dadka ugu magaca dheer Soomaaliland ee meeydiha ka hadla ee Soomaaliya oo dhammi taqaariin dhageystaa 80% waxay ka soo baxeen Camuud Ahmed Saacid Watar baa ka cawka ka dalmar baa Yoris baa Saciid baa macallimiintii Soomaaliland la furo kala baxday kala baro bar kuwa ugu wanaagsan Camuud bay ka baxeen musagarna kamid aha Allah naxariisto ninka jaamacadda Hargeysa dhintay siyaasiyiinta ugu cadcad la dhageysta badankoodu Camuud bay ka baxeen inta imka xisbiyada oo ka baxaysa qaar badankoodu waxay ka baxeen qaar Camuud dhakhaatiirta waxaa soo dhamay waa dadkii idinka horreeyay oo weliba waryaaraheen gadaal dhaladkow annagu maana helin jaariska hesheen PhD waa ku qaadanaysaan Camuud daariyada suuraysan waxaan ku war nasiib badan ku
حمر وحده قاعد باني أوجي ماشي قاعد شايف حمر قاعد بيجي باني أوجي بقول بيش لو إنه ورق قاضي يا ساكو لو تبلت جيا مركا waxa ku daataan iyo waxa higsataan iyo waxa ku daataan baa haysa intii macallimiintu diiday asalaamada diidan baa leh maanta aqoontiinu muddo ku baahay maanta dalku aqoon buu baahay waxaan mar walba soo qaadaa imkana xusaya inamadii loo doortay dawladda hoose badankooda 8% waliba gudoomiyaasha loo doortay degmooyinka waxa la igu eedeeyaa bariga xisbiga oo ma xajirino waxay ka soo baxaan xisbiga ma arkay ka soo baxaan kuwan doonaya kuwan xisbiga doonaya ha ahaadeen nidaamka uu shaqeeya oo dadka nabadeeya oo official doonaya ku ka soo baxaa waa kan doonaya ka noocaasi inuu dalka hogaamiyo iyo qolada shaqo qaran loo roor model waxay noo balana oo aan ka codsanay bal hadayna ka fikirtaan kolo dambaynu soo maadna hadii la yiraahdo war weydiin doonaaye maanta waxaan joognaa 2022 bal hadda waxa ka fikirtaan 2023 ama 2024 sideebaad u aragtaan jaamiciinta masterkii baa qaado maxaa doonaysaa Soomaaliland soo weekaato tu kala adii sheegaya tusaalaha كوبيلات سنكو شنات سنكو مركز سليبان iyo riyaale iyo cigaal iyo jaamacadda la hadalhay fishanka ay arkayeen inay sida noqon doonto yaa arkay shantanina soo hindisay iyo kuwa dibadda ka taageerayo dhamme yaa arkay riyaal oo arkay laakiin iyagu way muuqatay riyaas inay saan noqonayso Saleebaan maanta wuxuu ku deeq wax walba uga weyn riyadii ay riyoorayeen isaga rigi la socday inay maanta iyadoo dhaba oo hirgasho sida gantaalka u socota inuu ku wareejiyay waxaad ka doonayaa inaad saa 20 sano soo gaba Soomaaliland si noqonaysa aan dad ka rabna oo dadana hirgelisaan fishanka Soomaaliland ka wanaagsan ka nabad badan ka shaqo badan ka warshado badan ka qab weyn adduunka halkay doonka raacdo waana la gaaraa marka loo adkaysto maxaa buruufa soddon sano inuu ahay Soomaaliland oo la ictiraafsan leeyo dardaar warnay soddonna waxaanu hayn dawladdu waxaanu ku jiray dawladda Afrika ugu xoog weyneed bal qora tacliiminta ay sugeeya soddon ka sanadood aynu dawladda Afrika u xoog weyneed ee Ruushya Mareykanka bayna caawinayeen ee Soomaali Republic loo oranayay bal maxaa u qabsaamay gobolka awdal xisaabiya soddon kiilo noo dardaar warinayay ee la lahaa dawladdu ma aha ee la lahaa waa dalan ictiraafsanayn ilaa qofka ilaahay ictiraafsan yahay ka xoog weyn bal xisaabiya soddonkii sano waxaynu qabsanay xisaabiya inta jaamiciin oo soo baxday xisaabi inta wadaynu sameysnay xisaabi inta gurad dhisnay xisaabi challenge qolada data taqaanay oranaysa waa 30 sanadood wad 60kii ilaa 19 sanadood isu qiyaas horumarku waa adkaysiga iyo aragtida iyo alla aaminaada iyo isku kalsoonaanta intaas ay noo balana wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh